سؤال باجرتا soomaalida inta badan ay isweydiiyaan laakiin jawaabteedii maxaa la dhahaayay cid haysa aysan jirin su-aashan oo ah ciyaalka soomaalida iyo ciyaalka ajaanibta farqiga u dhaxeeyo maxaa la dhahaayay uu yahay ciyaalka yacni ajaanibta inay degan yihiin kuwa soomaalidana maxaa la dhahaayay yacni ay ka fudud yihiin ilmaha ajaanibta dabcan waxaa ka hadlaya ilmaha caafimaad qaba iyo ilmaha ajaanibta oo ayagana caafimaadka qaba markii laisku barbar dhigo يعني محلها فرق وين أيام ماشاس كموقدة لكن سومالي أنت بدن وحيد هان أنا ديجينا كل الصومالي ديجينا كل السان واي هذه أرنتا سقيلة وراديان لكن أرنتا صار ما أنت دبعت واي دبعت يعني حل كذا دبعت ماشي أكي إماتي إن أد وقتان ويعني وح أو محلها دمان يعني بولشة إيو محلها يعني دمان عورتا saameynta caruurtaas meesha ay ka imaatay iyo sida lagu xallin karo aan raba maanta inaa idinla wadaago xitaa madax adeega soomaalida waxay dhahaan yani caano geela lagu koriyey ciyaalka oo qurbaha lagu dhalay caano geelna laguma korinin afrikana lama geynin laakiin haddana ay tahay saameyn يعني waxaa dareemaysiin in ay weli kuwa qurbaha lagu dhalay iyo kuwa afrika lagu dhalay ay isku mid yihiin yani ciyaal soomaali ay isku dabeecad ilmaha soomaalida isku dabeecad inay yihiin aad dareemaysiin su-aashaasna in badan waa isweydiisaan soo maxaa la dhahaayay dhaqaatiirta oo ku takhasuseen cilmiga enerjiga yacni dadkooda waxay ka wacyigeliyaan markasta waalidiinta yacni dabcan hooyada labada waalid markii aabaha laga soo tago hooyada inay tahay aas-aaska guriga iyo qofka maxaa la dhahaayay caruurtaas maadaama ayada ay intaas 9 bilood caloosha ay kusoo waday hooyada enerjigeeda yani energy waxaa la dhahaa kole inaa fahamteen energy waa af soomaali taaqa asal ahaan taaqa carabi waaye qur-aankana way ku jirtaa oo maxaa la dhahaayay taaqa waa enerjiga qofka biniaadanka uu ku shaqaynayo qofka biniaadanka ma ahan wax kasta oo la qabsanayo waxay leeyihiin energy oo loogu dhaqaaqa yani hami waaye qofka biniaadanka maskaxdiisa markii laga soo tago waxa kaliya uu ku dhaqaaqayo waa energy yani ma ahan inuu gacno iyo lugo leeyahay hadduu gacno iyo lugo leeyahay iyo hadduusan lahaynba waxaa ka muhiimsan energy hadduusan lahayn qofkaas yani maxaa la dhahaayay qof aan dhimanin oona nooleyn waaye dadka ajaanibta ah dadka naafada ah markaa aragtaan waxaad dareemaysiin inay yihiin dad hami leh dad wax qabsanaya inkastoo kuwa soomaalida maskaxda laga dilay oo bulshada ay ku dhex nool yihiin waxaan ku dhahay yani warxumo iyo naafo waay qofkan wax ma qabsan kara sidii loo dhahay yani ay noqdeen ba subxaanaka ya cadiim ayagoo noola kuwaas la dilay insha allah mawduucaas mar kale ka soo hadlaya laakiin mawduuca hadda waxaan rabaa in aan idinku fahansiiyo enerjiga waxa uu yahay enerjiga waa waxa qofka bini'aadanka uu ku dhaqaaqayo maskaxda ka sokow qofka bini'aadanka wax ugu muhiimsan oo maxaa la dhahaayay hadduu xitaa caafimaadkiisa uu naaqis yahay uu yani hadduu haysto uu wax ku qabsan karo oo xitaa caafimaadkiisa uu ugu dadaali karo waa energy qofka hadduusan lahayn wax ma qabsan karo naftiisana kuma dadaali karo yani horumarna ma samayn karo so marka enerjigaas hooyada enerjigeeda waxaa la leeyahay haddii ay tahay hooyo caafimaad qabta oo enerjigeeda uu fiican yahay cuntada marka ay cuntada ay karinayso ee reerka cuntada ay u karinayso haddii hooyadaas uu enerjigeeda uu fiican yahay cuntadaas cunto caafimaad leh ay noqonaysaa oo caruurta maxaa la dhahaayay xitaa maskaxdooda si fiican ugu koraysa ama ka qayb qaadanaysa maxaa la dhahaayay in ay yani ilmahaas yani deganaashahooda iyo farxadooda enerjiga hooyada haddii uu xumaado dhaqaatiirtu waxay leeyihiin oo hooyo dhibaatooyin soo martay ama maxaa la dhahaayay markasta iska buuqsan ama xaalado dareemaysa haddii ay tahay enerjiga cuntada marka ay karinayso caruurtuu saameynayaa yani waxaa laleeyahay haddii ay tahay hooyo aan xaaladeeda deganeyn cuntadaas ay karinayso yani caruurtuu saameynayaa haddii hooyo ee deganoo maxaa la dhahaayay enerjigeedu fiican yahay ay tahayna waxay maxaa la dhahaayay cuntada ay karinayso cunto lagu caafimaad cuntada waa meesha la isku haysto oo ama ilmahaasna maxaa la dhahaayay saameynayaan ama maxaa la dhahaayay ama caafimaadka helayaan waa cuntada marka dhaqaatiirta maxaa la soomaalida hal shay bas ay ku baraarugsan yihiin hooyada markay uurka leedahay haddii uurkaas maxaa la dhibaato ay ku dhacdo ama ay isku buuqdo in maxaa la dhahaayay taas xitaa waayadan dambe ay dhaqaatiirta maxaa la dhahaayay ay ka barteen oo yani ku wacyigeliyeen in ay saameynaysa yani hooyada
ilmahaas caloosh ku jiro maxaa la dhahay dhibaatadaas inay saameynayso laakiin taas ma ahan ilmaha banaanka jooga ama wax baranaya oo rooroon oo maxaa la ama ha yaryaraadaan ama ha roroonaadaan nooc kasta iskugu jiraano hooyo kasta oo ilmo u jooga waxaa la leeyahay hadduu enerjigeeda uusan fiicnayn ilmaheeda ayay saameynaysaa oo maxaa la dhahayay cuntada ay u karinaysana waa in xaalad ayadoo degan ayadoo faraxsan ee cunto u kariso haddii ay dareemayso jawigeeda maalin qofka biniaadanka jawigiisa uu iska qasan yahay jawigeeda qasan haddii ay cunto kariso waxaa leeyahay cuntada sun waaye laa xawla walaa quwata illa billah wallahi cilmi badan annaga aanan ku baraarugsaneyn baa jira sun waa markii laleeyahay ma ahan caruurta inay dhimanayaan laakiin caruurtiina xanaaqi waxay kasii qaadayaan ayagana stressay kasii qaadayaan soo marka arrintaas way saameynaysaa ayaa laleeyahay yacni wax laisku daaranayo waay meeshaan si fiican inaad u fahantaan baa rajaynaya yacni waa laisku daarana hooyada waxa ay dareemayso ilmaheeday ku daaranaysaa marka maxaa la dhahay hooyo kasta inay nafteeda ku dadaasho oo waxaa waaye maxaa la dhahay deganaashaheeda iyo caafimaadkeeda inuu horta lambar 1 yahay waaye hooyada haddii hooyada ay ayada lambar 1 ay caafimaad qabta ay degan tahay wax kale nolosha ilmaheeda iyo maxaa la dhahay way ka qayb qaadanaysaa marka dhibaatada jirta waxay tahay hooyooyinka Soomaalida ama kuwa la qaba ha noqdaan ama kuwa maxaa la dhahay oo ilmaha aabahooda kala taga ha noqdaano yacni waxay iska yihiin xaaladooda ma degana oo maxaa la dhahay marka ajaanibtana loo fiiriyo dhanka aabahana dhibka wuu ka jiraa aabaha naftirkiisa hooyada waxaa laga yaabaa inuusan farxad siinaynin inuusan maxaa la dhahay oo jecel siinaynin baa laga yaabaa midka ay aabaha wada joogaan xitaa soo marka maxaa la hooyada way fikiraysaa markasta hooyada waxay u baahan tahay jecel inay hesho inay farxad hesho si ay marka iyadana caruurteeda wax fiican ay ugu gudbiso reeraha isqabo waxaan kula talinayaa aabaha iyo hooyada inay isa saxaan markii taas laga soo gudbo hooyooyinka keligooda oo ilmaha korsada oo aabayaashooda kala tageen waxa ay ku dadaalayaan ayaga waxa ay tahay in ay wixii hore oo aabaha soo dhaxmaray ay iska iloowaan ay iska tirtiraan yacni wixii hore oo soo maray hooyo kasta go'aanka ayada iskale go'aanka adiga qaadatay ilmaha inaad kaligaada kursatid waxa aad ku qasban tahay adii ninkaas wixii idin soo dhaxmaray inaad iska masaxdid laakiin dhibaatada jirta waxay tahay hooyadaas Soomaalida maba iloowayso wixii soo maray ee ninkaas kala soo kulantay maalinta xaaladeeda ee kacsanta waxaa laga yaabaa in ay ilmahaas maxaa la dhahay dhahdo waraabihiina saana waraabihiina wax idinma taro waraabihiina wuu idin nacay waraabihiina kan waxaan ku dhahay wax aan wixii allaal wixii dhibaato ahaa soo maray ama wax xaalad jirta markaas ha noqotee wixii markaas ilmaha maskaxdooda loogu celcelinayo taasna dhibaato ayay leedahay inaa go'aankii aad qaadataan inaa ilmaha keligiina korsatiin inaa iskaga adkaysatiin oo ninkaas oo dhan ilaahayow iga masax aad hadiina maskaxdiina aad ka saartiin si maxaa la dhahay ilmahaas aad ku dadaalaysid oo aad leel wanhaar u taagan tahay oo ilmaha maxaa la dhahay maskaxdiisu fiican tahay waxbarashada ku fiican uu noqdo xitaa waxbarashaday saameynaysaa arrinta noocaana inuu hooyada enerjigeeda hadduu xun yahay ilmaha waxbarashadooda xitaa galab iska noqoto marka insha Allah arrintaas waxaan rajaynayaa inaad ku baraarugteen aad wax badanna ka fahamteen